hogaamiyaha xisbiga mucaaradka wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan oo goordhaweeyay telefishinka Star ugu warramay magaalada Hargeysa ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in xisbiga mucaaradka wadani aanu qaadicin doorashadii ka dhacday Soomaaliland waxaanu tilmaamay hogaamiyuhu inay ka warsugayaan natiijada soo saari doono komishanka doorashooyinka Soomaaliland. waad salaamay adiga iyo Star TV iyo dhammaan inta kala socotaba hadalka oranaya doorashadii miya qaadacday doorashadii waa nagii galay oo damana qaadicina doorashadii waa nagii galay oo campaign-keedii iyo doorashadii iyo hawsheedii wadi ka ogaa laakiinse waxa iga muuqatay warbaahinta iyo baraha bulshada warar qaldan oranaya doorashadii bay qaadiceen iyo natiijadii bay diideen iyo waxa noocaasa doorashadii Soomaaliland laga qabtay 13 November waxa uu tartamay saddex xisbi oo ka mid yahay xisbiga iyagu waxaan rajeynaa insha Allah ta'ala natiijadii soo baxdo natiijada soo baxaysana wali lagama hadal galabtaan ku bishka wada joogno wax laga wada hadlayay codadkii iyo tirintii iyo tabashadii ka jirtay iyo madmadowiyada ku soo arooray ee la soo sheegay marka gudoomiyaha wuxuu ka hadlay doorashada iyo caafimaadkeeda ayuu ka hadlay musharaxa waxa weeye doorashada iyo caafimaadkeeda ayuu duray oo ka hadlay oo wax ka tibay oo still aan wax ka tabanayna oo ku waafaqsana isagoo hadalkiisa si wato hogaamiyuhu wuxuu tilmaamay in xisbiga mucaaradka wadani looga baqanaynin inuu nabadgelyada dalka waxyeelo isagoo fariintan diriyana Xirsi Cali Xaaji Xasan wuxuu yiri waxaan filayaa runtii taas waa wararka ku turkuteenka saxaafadu aadka u wado oo saaka waxaan arkay iyadoo gudoomiyana wada joogno baan arkay warar la leeyahay gudoomiyihii waxa weeye wadani iyo musharaxii wadani iyo musharaxiintii kale kulmiye cid waxay joogaan komishinkay joogaan oo waxay saxeexayaan natiijadii waana ogeydo cid isugu timi ma jirto natiijo la soo saarayna ma jirto marka wararka noocaas ah suuqa la wada u badan waxa weeye been abuurka iyo propaganda way dadka runtii aan u turayn Soomaaliland ama ha noqdo warbaahin ama ha noqdo shakhsi siyaasiya dadkan Soomaaliland u turaynin ay ka dhawaajinayaan laakiin anaga waxaan leenahay doorashada iyo natiijadeedii doorashada waanu galay si xaragale oo qurux badan oo waxa weeye aanu guula ka soo hoynay guusheedii weyneed aanu sugayno guusha ugu weyn Soomaaliland baa iska lahayd in doorasho nabadgelyo ay dhacdo Soomaaliland baa guud ahaan iska lahayd in lagu kala guuleystana wax doorashada loo galo laakiin si taa lama gaadhin inaanu guuleysano iyo in cid kala guuleysato labadaba waxaan markii horeba filaynay laakiin si lama gaadhin taa marka natiijadu la keeno iminka waxaanu ka hadlaynaa processkii iyo hanaankii ay u dhacday doorashadu laakiinse marka natiijo la gaadho commissionku iyaga loo eegmaday natiijo soo saaraan markaas aan ku hadli doonaa haddii Allah wada ogolaado taa nabadgelyada dalka nabadgelyada dalka ma aha wax anaga nologa baqayo dalka anaga cid walba uga la jecel badan dhismihiisa iyo horumarkiisa iyo ilaalintiisa cidna waxa weeye wadani looga baqi maayo hadda sidaad arkaysa gudoomiyuhu ugu yaraan 20 qof baa la xidhay oo wax markii doorashadu dhacaysay iyo dabadeed la xidhayba marka iyadoo dhibaatadaas gaadhaysaba haddana reer wadani ay sugayaan oo ilaa hadda ay ka hadlayaan in waxa weeye sharciga la ilaaliyo nidaamka in waxa weeye aan lagu xadgudbin dadka laakiin si nologa baqi maayo anaga dalka nabadgelyadiisa anaga cid walba uga la jecel badan anaga ilaalinayna taageerayaashadan waxaan ku leenahay waa kala gaar doorashada iyo tabitaanka waxaynu ka tabayno ama ka tabanayno wixii qalooc iyo mugdi soo gala dalka iyo horumarkiisa iyo nabadgelyadiisu waa wax kala gaar taasuna waa wax gaar ah oo gaar looga hadlo oo waxa weeye cidii waxa weeye kharibaysa iyo wixii xumeynayaba meel laga soo wada jeesto midina waxa laga hadlayaa wax xuquuqdii dadkii noocday lahaayeen wax xuquuqdii doorashadaanu lahayn waa guusheedii aanu doonaynay waanu daba joognaa waanu ka hadlaynaa waanu cadaysanayna waa raadinaynaa ilaa intaanu ku guuleysanayno ama aanu garwaaqsanayno inaanaan helin waa daba soconayna natiijada waa sugaynaayo haddii naloogu dhawaaqana waa sugaynaa waxaan lagu dhawaaqin lagama warramo lamana qaadaco lagama warramo marka natiijo miyaa maqashay natiijo lagu dhawaaqay weli mid soo gaadhay maya natiijadii anana waa sugaynay inaanu guuleysano haddiina laga guuleystana waa markeeda iyo waqtigeeda horena ballamaan loo qaaday waa markeeda iyo waqtigeeda laakiin si sheegan ilaa hadda ka hadalay waxa weeye hadalkii uu ku arooray waxa weeye doorashadii iyo hanaankay u qabsoontay iyo dhacdooyinkii dhibta lahaa ama sabab xadgudubyada ahaa ee ku soo arooray oo ka mid ahayd
waxa weeye dad la xidhxidhay dhibaato la geystay wax isdabamarin lagu tuhmay waraaqihii waxa weeye lagu codeynay banaanka laga helay tabashooyinka noocaasa ayuu ka hadlay musharaxu oo tilmaamay in yacni ay doorashadii sidii ay u dhacday mugdi gelisay oo xalaalnimadeedii iyo hagaageedii waa wax dunida ka dhacay in maraykan doorashadu dambeysay Soomaaliya maqlayni waa lagu shubtay deena waxaan aaminsanahay inay jirto wax isdabamarin badan iyo midmadow badan Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa